بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعنا وناكسن داوديال كسو dhawaada warka janaalkeena runta wararka qodobada warkeena aad ku daawadootaan waxaa ka mid noqon doona weeraradii maanta ka dhacay xalane oo warar dheeraad ah ay ka soo baxayaan taliska ciidanka booliska oo war ka soo saaray weerarkii xalane wararkii ugu dambeeyay weerarka lagu qaaday xerada xalane ayaan daawadayaal warkeena intiisa badan ku soo qaadan doona iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Mahad Salaad si isku mid ah kaga hadlay weerarka lagu qaaday xerada xalane ayaan daawadayaal warkeena ku soo qaadan doonaa hadaba daawade haddii aad janaalkeena ku cusub tahay subscribe noo saar janaalka wararkeena like iyo share iyo commentiga noogu dadaala aan ku bilaawo qodobka ugu horeeya faahfaahin dheeraad ah ayaa waxaa ka soo baxaya weerar lagu qaaday xerada xalane ugu yaraan 6 qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen weerar al-shabaab ay ku qaadeen xerada xalane ee magaalada Muqdisho sida ay noo xaqiijiyeen booliska afayeenka booliska shaanle sare Cabdi Fataax Aadan Xasan ayaa sheegay in 6 qof 5 kamid ah ay yihiin ajaanib ay ku jiraan askar ka tirsan ciidanka Amisom waxaana intaasi uu ku daray inay dhinteen dad kale oo ka tirsan saraakiil sarsare oo ciidanka booliska afayeenka booliska oo la hadlay warbaahinta dawladda ayaana sheegay in ay weerarka qaadeen 2 kamid ah kooxda al-shabaab ayna galeen xero u dhow garoonka diyaaradaha kooxda al-shabaab ayaana sheegatay mas'uuliyadda weerarkaasi waxaana dhankeeda ay shaaciyeen in ay toogasho ku dileen saraakiil ka tirsan ciidamada dawladda wararka ayaa waxa ay intaasi ku sii darayaan in ay jiraan dilal kala duwan oo loo geystay saraakiil ka tirsan ciidamada Amisom xildhibaan Mahad Salaad oo kamid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa qoraal oo soo saaray ku sheegay in uu aad ugu xun yahay dhibaatadii ka dhacday halkaasi isagoona tilmaamay in wax laga xumaado ay tahay taliska booliska warka ay soo saareen ayaa waxa uu ku soo aadayaa xildhibaanmihii ugu dambeeyay digniino laga soo saaray taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaana faahfaahin hordhac ah ka bixiyay weerarka culus ee barqanimadii maanta lagu qaaday xerada xalane ee magaalada Muqdisho kaasi uu geystay khasaare leh dhimasho iyo dhaawac afayeenka booliska oo la hadlay warbaahinta dawladda ayaa sheegay in weerarka ay qaadeen 2 kamid ah kooxda al-shabaab ayna galeen xero kaag dhow garoonka diyaaradaha Cabdi Fataax Aadan Xasan ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in ay ciidamada ammaanka ay toogteen ragga weerarkaasi soo qaaday iyadoona xerada xalane laga soo weerar dhanka Marina Gate sidoo kale waxa intaasi uu ku sii daray inuu wali ay socdaan baaritaanada howlgalada isla markaana uu faahfaahin dheeraad ah uu dib u ka bixin doono xaaladda ayaa wali kacsan waxaana rasaas xoogan laga maqlayay maalinta oo idil gudaha xerada xalane oo ay degan yihiin ciidamada Amisom sidoo kalena ay ku yaalaan safaarada waaweyn kooxda al-shabaab ayaana sheegatay mas'uuliyadda weerarkaasi dhanka kale daawadayaal waxa eedeymo kala duwan loo jeedinayaa saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka ila sirdoon ah oo la helay ayaa la sheegayaa in maalmihii ugu dambeeyay ay ogaadeen in weerar lala damacsan yahay in lagu qaado xeradaasi saraakiil ka tirsan dawladda Soomaaliya ayaa fududeeyay weerarka isla markaana la sheegay in la geeyay controlka ciidamada ammaanka ay ku sugan yihiin irida Marina Gate ee garoonka diyaaradaha Muqdisho ee laga soo galo dhinaca School Buluusiya ku yaala muddo ku dhow 2 saacadood ayay al-shabaab rag ka tirsan ku dagaalamay iyagoona dilay askar Amisom ah iyo kuwa dawladda ka tirsan iyo saraakiil ku jira Cabdiraxmaan Afar Nuug oo ah taliye ku xigeenka amniga madaarka Muqdisho wararka ugu dambeeya ayaa waxay sheegayaan in ciidamada dawladda Soomaaliya wali ay wadaan howlgallo kala duwan oo lagu xaqiijinayo amniga sawir laga soo qaaday waxa la arkayay ciidamada haramcadka oo qaab fiijignaan ah ugu dagaalamayay iyagoona ku sugan aaga teendada Amisom waxaana dadka inta badan ay ku tilmaamayaan wax laga xumaado weerarka halkaasi ka dhacay midowga musharaxiinta waray soo saareen ayaa waxay ku sheegeen inay ka xun yihiin waxa ka dhacay Marina Gate isla markaana aan marnaba loo dulqaadan karin iyagoona eedeen dusha ka saaray madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo dhanka kale xildhibaan Mahad Salaad oo kamid ah golaha shacabka ayaa si kulul u dhaleeceeyay hanaanka Farmaajo uu dalka ku xukumayo iyo habacsanaanta amni waxaana uu Mahad Salaad uu sheegay in wax laga xumaado ay tahay in 5 sano kadib al-shabaab loo fududeeyo in ay ka dhex dagaalamaan teendada Amisom oo Farmaajo laga soo doortay sida uu sheegay xildhibaan Mahad Salaad dhanka kale xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa dhankiisa waxa uu cambaareeyay weerarka lagu qaaday xerada xalane oo ah qaybta garoonka diyaaradaha ee Muqdisho
hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa si degdeg ah u dalbaday in la bedelo taliyayaasha ciidamada amniga si looga hortago weerarada kale ee dhanka al-shabaab ka imaan karaan, isagoona tilmaamay in ay maalmihii ugu dambeeyay ee si weyn ula socdeen laamaha amniga xaaladda amni xumo ee ka jirto magaalada Muqdisho. ilaa hadda wax waraah kama soo bixin madaxda ugu sareysa dowladda federaalka Soomaaliya, mana aysan ka hadlin dhibaatooyinka kala duwan ee haatan ka jira gudaha magaalada Muqdisho. wasiirka amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa eedeynta ugu xoogan dusha laga saaraya, iyadoo saraakiil sarsare oo ka tirsan kuwa Amisom ee kulamo degdeg ah ay haatan ku leeyihiin xerada Xalane, iyagoona ka arrinsanaya ammaanka guud ee gudaha magaalada Muqdisho. sidoo kale safiirka safaaradda Soomaaliya u fadhiya Mareykanka ayaa waxa uu cambaaray weerarka lagu qaado xeradaasi, isagoona sheegay in ay feejignaan la'aanta ka dhex jirto hay'adaha ammaanka ee dowladda federaalka Soomaaliya ay tahay mid aan loo dulqaadan karin, isagoona tilmaamay in dowladda Mareykanka ay si gooni ah ay kaga fiirsan doonto xaaladda amni darra ee ka soo kordhaysa magaalada tani Muqdisho. wararkii ugu dambeeyay ayaa waxay sheegayaan in ay weli ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan kuwa amniga eedeymo kala duwan loo jeedinayo. dhanka kale al-shabaab ayaa war ka soo saaray weerarka garoonka Aadan Cadde, waxay sidoo kale sheegeen in ay dileen saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya. dhanka kale daawadayaal, weli waxaa magaalada Beledweyne ka taagan xaalad cakiran oo dhanka doorashooyinka ah. wararkii ugu dambeeyay ee ka imaanaya magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxay sheegayaan in xaalad adag ay ka jirto magaaladaasi oo ku aadan arrimaha doorashooyinka, xilli maanta Cabdullaahi Goodax Barre gebi ahaanba uu ka haray xildhibaanada baarlamaanka 11aad ee Soomaaliya, iyadoona Cabdullaahi Goodax Barre oo ka mid noqday shakhsiyaadka gebi ahaanba ka haray xildhibaanada baarlamaanka 11aad. wasiirkii hore ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ayaa waxa uu noqday mid natiijo la'aan dib ugala soo laabtay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, iyadoo horey taasi ugu qanacsanaa madaxweyne ku-xigeenka maamulka Hirshabelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed. Yuusuf Dabageed ayaa qorshihiisa ugu weynaa waxa uu ahaa in gebi ahaanba laga taqluusiyo Cabdullaahi Goodax Barre iyo kooxda taageerto. haatanna waxay u muuqanaysaa in Cabdullaahi Goodax Barre gebi ahaanba tigidhka loo jaray, isla markaana Cali Guudlaawe Xuseen iyo sidoo kale Yuusuf Axmed Hagar Dabageed go'aankooda uu rumooway oo ku aadan inay ka taqluusiyaan wasiirkii hore ee wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya. Cabdullaahi Goodax Barre ayaa waxa uu ka mid noqonayaa shakhsiyaadka gebi ahaanba laga taqluusiyay. dhinaca kalena doorashadii ka dhici lahayd magaalada Garbahaare ayaa gebi ahaanba laga wareejiyay, iyadoona madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe uu haatan rajo wanaagsan ay soo gashay. Axmed Madoobe ayaana waxa uu doonayaa in uu sida ugu dhaqsiyaha badan isbedelo degdeg ah oo ku aadan arrimaha doorashooyinka uu sameeyo. madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa riyadiisa haatan ay u rumowday, iyadoona taasi ay saameyn badan ee ku yeelanayso kooxda madaxweyne Maxamed Farmaajo. maamulka Ceelwaaq ayaa maanta shaaciyay inay diyaarinayaan teendho loogu talagalay in lagu qabto doorashada 16 kursi ee deegaan doorashadooda ay ahaayeen magaalada Garbahaare. maamulka ayaana sheegay in agagaarka garoonka diyaaradaha Ceelwaaq ay haatan ka dhigi doonaan halka doorashada ay ka dhaceyso. guud ahaan daawadayaal, warkii oo aad ka daawanayseen janaalkeena runta wararka saaxiibayaal waa naga intaa. haddaba daawada, haddii aad janaalkeena ku cusub tahay, subscribe noo saar janaalka, wararkeena like iyo share iyo commentiga noogu dadaala. waadna mahadsantihiin. nabadgelyo.